السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبة قاليا كسو دواده تحنيهني شني تونات يكون هبين يابين. فضلا هدية نوع عصب تسودو سبسكرايب شار جنبلير كان رقمه سي اي كوسو غاران وحل بان صادق للدربدي با. هدية هورين ولا جوتينا لايك سار سينا شير غري او لوداك اصحاب تابا. كندي وفكر كاي فيعان كنا سو قرقيبته هوسه اي كومنتيدا. marka daawad kadib anigana si ay dhiirigelin ugu noqoto ma sanid hadarna daawasho habeenkii 19aad markii la gaaray hore ayay u sii waday shaarada sheekadeedii iyada oo tiri kadib khaliifkii muuminiintu wuxuu amray in qisaal uu qor diiwaanka laguna keediyo maktabada boqortooyada markale ayuu khaliifkii weydiiyay gabadhii ma ka war haysaa jinnadiisa xirtay walaalaha waxay ugu jawaabtay ha amiirul muuminiin waxa ayna isiisatay mid kamid ah timaheeda waxayna ugu tiri hadii aad ii baahato qayb kamid ah timahan gub waana ku iimaanaya xataa hadii aan joogo buurta qaaf markaas ayuu khaliifkii muuminiinta ku yiri bal igu yeera aan aragne gabadhii ayaa qayb kamid ah tintii gubtay markaas ayaa qasrigii gariiray jug culusna way dhacday misoo aba jiniyadii waxa ayna ahayd mid muslimad ah kolkaas ay salaantay amiirkii muslimiinta salaantii ayuu isna ka qaaday kadib jiniyadii waxay tiri khaliifow gabadhan awaal weyn ayay ii sameysay geeri ayay iga badbaadisay waxayna dishay cadawgeyga markii aan ogaadayna waxay walaalaheedu ku sameeyeen aad ayaan ugu xumaaday waxaana go'aansaday inaan u aargudo anigoo aanan dilin sidaas darteed ayaan u sixray hadii aad rabto khaliifka muuminiinta sixirka inaan ka furana waan ka furaya khaliifkii ayaa yiri bal ka fur si ay u cadaadaan cid gardaran iyo cid kale qof kastaana xaqiis ayaa la siinaya cidina halkaan lagu dulminayo markaas ay jiniyadii ka furtay gabdhii sixirkii markaas ay gabdhii sidoodii ku soo laabteen kadib khaliifkii wuxuu jiniyadii weydiiyay gabadhan sidaan cid u garaacday waxaana ugu jawaabtay waa wiilkaaga amiin kolkaas ayuu amiirkii u wacay wiilkiisii wuxuuna weydiiyay sidii ay wax u jiraan wiilkiina sidii runta ahayd ayuu ugu jawaabay khaliifkii wuxuu isugu wacay garsooriyaashii magaalada حاكمينتي مرقاتياشي يصدحدي نين ee sawoolka ahaa sidoo kale wuxuu u wacay gabadhii koowaad iyo labadii gabdhood oo walaalaha ahaa wuxuu saddexdoodii ku kala daray saddexdii ninka sawoolka ahaa isaga oo si wax kasta oo ay u baahnaayeen maadaama oo saddexda nin oo sawoolka ahaa oo ay sheegeen inay boqor ahaayeen uu soo dhaweeyay wuuna karaameeyay gabadhii labaadna wuxuu u guuriyay wiilkiisii amiin wuxuuna ku amray inuu si wanaagsan ula dhaqmo kadib khaliifkii wuxuu guursaday gabadhii saddexaad asigoo u dhisay aroos aad u weyn dajiyena qasrigii magaalada Baghdad muddo kadib ayuu hadana khaliifkii u wacay wasiirkiisii Jaafar iyo Mansuur wuxuuna ku yiri in kaana caawa ayna magaalada aynu galnay waa intaas oo aan la soo kulannaa dad dhibaataysan oo kaalmo u baahanay sidii ayna ku soo bixin waxay wada socdaanba waxay la kulmeen oday waayeel oo diif iyo daal ka muuqata kolkaas ayuu khaliifkii odaygii joojiyay wax uuna weydiiyay xaalkiisa odaygii wuxuu ugu jawaabay aniga waxaan ahaa oday kalluumaysato ah qoyskaygana aniga oo kaliya ayaa u shaqeeya saaka ayaana soo baxay maanta oo dhanna waxaan sugayay in shabaqan wax ii soo galo laakiin waxna way ii soo gali waayeen ilmaheena waa ii baahan yihiin wax aan siina ma hayo khaliifkii waxa uu ku yiri ka waran hadii aan webiga u laabano oo ay shabaqaaga ku tuurto wax kasta ay soo galana aan 100 diinaar ka siiso odayga aad ayuu u farxay hore ayuuna ka ogolaaday waxa ayna ku laabteen webigii waxa ayna ku tuureen shabaqii cabaar markii ay sugayeen ayaa wax ay soo galeen kadibna waa ay soo saareen wax uu naqday sanduuq aad u weyn kolkaas ayuu khaliifkii sanduuqii soo qaatay odaygiina wuxuu siiyay 100 diinaar khaliifkii markuu qasrigiisa tagay ayuu amray in sanduuqa la furo si u fiiriyo wax ku jira kadib sanduuqii ayaa la furay maxay kula tahay in sanduuqaasi ku jireen sanduuqaasi waxa ku jiray gabar inta la dilay oo hilibkeeda la jarjaray ayaa sanduuqii lagu xiray biyihiina lagu tuuray markii khaliifkii arkay ayay ilmo ka soo daadatay waxa uuna eegay dhanka Jaafar asigoona ku yiri wariyaa wasiir isku sheego maatadii ayaa la laaynayaa anigoo amiirul muuminiin ah kadibna hilbahooda oo cadcad u go'an badii lagu tuuraya aakhirana ana la ay qabsan doona maadaama aan mas'uul ka ahay maya wallahi waan u aargudi doonaa gabadhan oo dadkan sidaan u yeelay inta aan soo qabtay ayaan ciqaab adag marin doonaa ilaahay ayaan ku dhaartay Jaafar oo hadii aadan ii keenin qofka sidaan yeelay waxaan idinku daldali doonaa qasrigeyga hortiisa adiga iyo 40 ilmo adeeradaada ah kolkaas ayuu khaliifkii Jaafar ka codsaday inuu sugo muddo 3 maalmood ah khaliifkiina wuu ka ogolaaday Jaafar ayaa qasrigii ka soo baxay asigoo aad u murugaysan isna weydiinayo xagee ka keenaa muddo 3 maalmood ah qofkii sidaan sameeyay isaga oo aad u naxsan ayuu gurigiisa tagay oo iska fariistay markii la gaaray maalintii afraad ayuu khaliifkii u wacay Jaafar asigoona weydiiyay aaway dilaayay gabadha waxa uuna Jaafar ku jawaabay khaliifow aniga ma oga cilmi ghaybka mana aqaano qofkii gabadhan dilay markaas ayuu khaliifkii xanaaqay wuxuuna amar ku bixiyay in Jaafar lagu xiro tiir qasriga hortiisa ku yaala sidoo kale waxa uu amray in magaalada qof loo diro
si oo dadku u soo ogeysiyo qof kasta oo doonayo inuu daawado dilka Jacfar al-Barmaki wasiirkii khaliifka inuu u soo daawado tago magaaladii oo dhan ayaa isku soo baxday oo madashii wada timid si ay u daawadaan si loo daldalayo Jacfar iyo ilma adeeradii markii dadkii isku soo wada bixin ay wada yimaadeen ayaa waxa dhacday inuu madashii yimid wiil dhalinyaro ah wuxuuna soo kor istaagay Jacfar waxa uu ku yiri wasiirow waxa aan rabaa inaad ii geyso khaliifkii waxaan ahay wiilkii gabadha dilay laakiin waxa kadib waxa yimid oday aad u weyn waxa uu yiri Jacfar wiilkan hadalkiisa aaminin gabadha aniga ayaa dilay ee aniga ii geey khaliifka markaas ayaa wiilkii yiri odaygan ha aaminin waa oday da oo isku dhaxdaatay ee aniga ayaa dilay gabadha ee aniga ii geey khaliifka Jacfar arintii aad ay u leeyaabay labadoodii intuu soo kaxeeyay ayuu khaliifkii u geeyay si loo kala saaro qofka gabadha dilay markii dambe waxa cadaatay in wiilkii dilay gabadhii khaliifkii ayaa weydiiyay sababtii uu dilay wuxuuna ugu jawaabay khaliifow gabadhan waxay ahayd xaaskeyga waxaana dhalay odaygan ila socda waxayna ii dhashay 3 caruur ah muddo kadibna way iga xanuunsatay waxayna iga codsatay inaan u keeno xabad tufaax ah anigana waan soo baxay waxaan maalintaas oo dhan suuqa ka raadinaya xabad tufaax markii dambe ayaan la kulmay oday tufaax iibin jiray waxa uu ii sheegay in magaaladan laga waayay haddii aan doonayo inaan tufaax helana ay tahay inaan magaalada Basra u safro khaliifo waxaan u soo safray magaalada Basra waxa aan ka soo iibsaday 3 xabo tufaax ah balse markii aan xaaskeyga u keenay way diiday inay cunto maalintii xigta ayaa shaqadeeda iska soo aaday anigoo dukaankeyga ag fadhiya ayaa waxa i soo agmaray nin adoon ah oo tufaax gacanta ku sita waxa aan weydiiyay xagee tufaaxan ka soo iibsatay ilaa magaaladan oo dhan waan ka waayay waxa uu igu jawaabay tufaaxan waxaan ka soo qaatay gabar aan jeclahay taasoo ii sheegtay inuu ninkeeda tufaaxan dartiisa oo u safray magaalada Basra markii uu hadalka igu yiri ayaan aad u murugooday dunidiina way ila madoowaatay dhaqso ayaa dukaankii u soo xiray waxaan soo aaday gurigii markii aan imid ayaan weydiiyay xaaskeyga aaway tufaaxyadii waxa ay soo saartay 2 tufaax markaas ayaan ku yiri aaway kii saddexaad waxayna ugu jawaabtay ma garanayo waxaan ogaaday in warkii ninka ay sheegay inuu run ahaa ciil intaan iscelin waaye ayaan gabadhii inta xabadka ugu fariistay ayaa mindi la soo baxay aan gowracay waxaan u gooyay cadcad aniga oo hilbaheeda ku tuuray wabiga Dijla dhexdiisa marka khaliifkii muuminiinta waxaan ka codsanayaa inaad ciqaabteeda ii soo dedejiso sababtoo ah aniga markaan gabadhii dilay waxaan la kulmay wiilkeygii yaraa oo oynaya isagoo aan ka warhaynin wixii hooyadii aan ku sameeyay waxaan weydiiyay waxa ku dhacay wuxuuna ii sheegay in saaka oo hooyadii ka soo qaatay 1 xabo oo tufaax ah kadib asiga oo jidka la taagan nin adoon oo madow ah inuu yimid oo ka qaatay oo ka xoogay wuxuu ugu yiri wiilkeyga waxa uu yimid aniga oo jidka taagan wax uuna ii weydiiyay meesha aan tufaaxan ka keenay waxaana ku yiri aabahe ayaa u safray magaalada Basra si uu hooyaday xanuunsan ugu keeno waxa uuna u keenay 3 xabo markii aan hadalkii wiilkeyga maqlay ayaan aad u murugooday kadibna waxa ay yimid adeerkay oo xaaskeyga aabaheeda ah wixii dhacay ayaan u sheegay amiirul muuminiin waxaan rabaa inaad ciqaabteeda ii soo dedejiso sidaan ugu degdegay xaaskeyga oo aan waxba hubsan waayay horay ay Soomaali ugu mahmaahday hubsiima hal ayaa la siistaa markii ay sheekadaas meeshaas maraysay ay Shahrazad ogaatay in wixii la gaaray waxayna joojisay hadalkii u banaanaa halkaas aynu ku soo koobaynaa taxniyeeni maanta inta aan ku kulmi doono qaybta xigta waxa idinkaga tagayaa sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh